ugu horeyn waxaan u mahadnaqayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala mar labaadkana mahadda iyo bogaadintaba waxa leh ururka isku xidhka dhalinyarada iyo wacyigelinta ee fadhigiisu yahay gobolka Togdheer khaasatan waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha ururka Maxamed Maxamuud Salebaan iyo agaasimaha dalladda Kayse Xasan Jaamac iyo xoghaynta ururka Cabdisamed Cusmaan Cabdilaahi oo runtii iyaga la'aantood uusan inoo qabsoomin barnaamijkan maanta aan halkan ku duubayno soo dhawaada mid ka mid ah barnaamijyadeeda oo aan aalaba kaga hadlo horumarinta dalkeena yar ee aadka u jecelnahay ee Soomaaliland barnaamijyada oo dhammaantood hadafkoodu yahay inay bulshada reer Soomaaliland u iftiimino sidee baynu dawlad iyo shacab inagoo isku duuban oo gacmaha is haysanayna ku gaari karnaa horumarka aynu higsanayno waxaan wada ogsoonahay dhammaanteen in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu inagu dul umay ama inagu dul beeray dul ama degaan meel la dego meeshii ugu wanaagsaneed oo bilaa nusqaana balse ay dhaliilo badan ka jiraan dhinaca hoggaanka iyo hormuudka ummadda sidaas awgeed waxaan maanta jeclaystay inaan dul istaago saddex qodob oo yar yar oo kala ah waa maxay hogaamiye leader ama hoggaan leadership dalkeenu hogaamiye nooc ma ayuu u baahan yahay iyo imisa nooc oo hogaamiye ayaa dalkeena soo maray ama haddaba ka taliya intaasi ka hor waxa iga xasuusinaa barnaamijka kagama hadli doono isbarbardhig aynu hogaamiyaasheena barbardhigayno hogaamiyaasha kale adduunka yacni maxaynu ka baran karnaa sidee bay dalalkooda u horumariyeen mechanism nooc ma bay isticmaaleen iyo maxaa caqabad ah oo ay kala kulmeen waayo waxaan ognahay inaynan isku doon saarnayn oo inaan wax badan share garaynin hadii ay tahay khayraadka iyo resourceska environmentiga hawada cimilada biyaha iyo geographic locationka and most importantly population density and political affiliationka sidoo kale barnaamijka kagama hadli doono waxyaabaha bugaagta cilmiga ee iskuulaadka iyo jaamacadaha lagu dhigaa ay ka qoreen dabeecadaha hogaamiyaasha about the definition, about the impact, the process and positions, methodological skills, years of experience, ethical behavior, communication and language skills, physical appearance, minority and majority ethnic groups and all this stuff. But I want to put it into a context what Somali leadership mean to us from the first place within our community here at home. haddaba su'aasha koobaad aynu isla fahanay waa maxay hogaamiye hogaamiye waa qof kasta horjooga ah dirsan wakiil ah mas'uuliyad saaran tahay baqi qaba vision iyo aragti dheer leh aqoon fiican u leh positionka iyo xilka uu markaasi hayo runtii waana symbol ama qaybtii ugu wanaagsaneed ee bulshada iska soo dhex saartay horumar iyo dib u dhac bay nagu matala dunidu arrimaheena kala xaajooto horena u soo haan jiray follower ma aha mid ku soo booday nidaamka maamul ee markaasi jira haddaba hogaamintu ma aha position iyo xil da lab iyo dhadig caanimo saldanad luqad iyo xataa cilmi badan oo aad taqaano hana u fahmin madaxda siyaasadda oo kaliya inay hogaamiyaal yihiin balse madaxda diinta iyo culimada madaxda shirkadaha hay'adaha public iyo private ka oo dhan uqaasha dhaqanka salaadiinta all the way down to the abiyaasha qoyska dhammaantood waa madax iyo mas'uuliyiin dirsan So if there is anybody who holds the position of responsibility, you are entitled of leadership. haddaba dalkeenu hogaamiye siyaasadeed nooc ma ayuu u baahan yahay su'aasha haddaad qof kasta oo shacab weydiiso waxaad markiiba maqlaysaa waa inuu noqdaa qof cibaado badan qof run sheeg badan daacad ah naxariis badan kaftan badan aftahana dulqaad badan gacan furan and so on and so far dadka sidaas ku jawaabaya waa inay laba kala saaraan waxa la yiraahdo bachelor personal righteousness wanaagga qofka Ilaahay ku abuuray ee uu isagu iska leeyahay iyo mas'uuliyaadka aynu loo igmaday inuu guto yaani aynu codka ku siinay waxaad arkaysaa qof mas'uul ah oo madaxa oo dad masaakiina wax siinaya xilliyada adag sadaqa baxsanaya janaasa ka qayb galiya tacsiid diraya murugada la qaybsanaya ololaha nadaafadda si public uga qayb qaadanaya oo lagu sifeynayo hoggaankii abid ugu wanaagsanaa taas macnaheedu ma aha qof kasta xataa shakhsiyan wanaagsan inuu hoggaan noqon karo meeshan mas'uuliyad la isu igmaday gudashadeed baa taala shuruuc iyo maamul iyo qaanuun dejisan ixtiraamkii baa taala awoodda waan lagu takrifalin iyo dadka loo cadaalad sameeyaa baa taala hadba waxaynu u baahanahay hoggaan aan hoos tagin kulliyad kale oo hoggaanka lagu barto
meeshii markaan aqoon iyo cilmi iyo waxaan ku yiri nidaam degsan iyo qorshe aan nala tagin maamul kasto dalkeena soo maraa waxa uu arday wanaagsan oo waliba dhageysi badan u noqda wafdi dibadeed danahooda gaarka fushanaya kulamo iyo conference iyo meeting badan kadib waxaynu maqalnaa hadaynu bulshadana ahay ama shacabkana ahay madaxweynaha iyo cutub wasiiraha ayaa kulan heer sare ah oo saacado badan qaatay la yeeshay wafuud iyaguna ka kala yimid wadamo dhowr ah muddo yar oo kooban kadibna waxa soo ifbaxda tartana lagu fulinayo mashaariic degdeg ah oo aan ku jirin campaign-kii ololihii xisbiga Tona waxa sideed in hadhow toole bulshada reer Somaliland loo akhrinayo postmortemkii waxay wafuudaasi ku taliyeen ama ay xal u arkeen halka bulshada reer Somaliland ay aad u naawiliyaan inay mar walba dhageystaan qorshe iyo nidaam madaxdeenu ay dejiyeen wixii uga hirgalay iyo waxa ka dhiman intaba Number 2 dalkan waxa uu u baahan yahay hogaamiye office-kiisu u furan yahay bulshada qaybaheeda kala gedisan oo runtii ka qayb gala public debateska community forumska bulshada kala duwan ay arki karto bulshada talo wadaag la yeesha looma baahna hogaamiye runtii office-ka ku naxsan ama cid gaari kaliya tay access u hesho la kulankiisa soo dhaadhacaas iyo tacaadufkaasi waxa uu faa'iideynayaa inaad wax badan ka ogaato nolosha dhabta ah ee xaqiiqada ah ee ay bulshada ku nool yihiin in ka badan inta aad TV-ga ka daawato ama lagu soo report garayo runtii waana sababta keentay in 80% madaxdeenu markay xilka hayaan aysan waxba dhaleecaynin yes man ay noqdaan yani markuu xilka ka dagana uu miciyo libax uu la soo baxo 20% waa kuwa reshuffle iyo reorganization ki isku shaanaynta dabanaawida labada choice haduu midna noqon waayo choice-ka saddexaad waa inuu jabhadeeyo ama uu Soomaaliya u galo Number 3 dalkani waxa uu baahan yahay runtii hogaamiye dhisa institutionska dalka waxayna ognahay dalkeena hooyo institutionadii public iyo private ba gudaha iyo dibadba inaysan jirin ama sidii la rabay aysan u shaqaynaynin dhisidoodan waxay ka mid tahay mas'uuliyadka ugu waaweyn ee dawladda looga fadhiyo bal waxa la yiraahdaa 50% boqolkiiba 50 ayay ka yihiin horumarka dalku talaabsado institutionadu iyaga ayaa dalalka qaarna ka dhiga developed nations kuwa kalena ka dhiga underdeveloping nations institutionadu marka ay dhisan yihiin internal corruption iyo maamul xumo aanad ka cabanin waxaad si fudud u kala ogaanaysaa meesha dalku horumarka uu ka taagan yahay waxa uu haysto sida uu maamulo meesha uu socdo meesha uu ka yimid iyo khayraadka uu haysto sida uu maamulo tusaale ahaan resourceska iyo khayraadkaagu ha yaraado habato ina taqaana meesha uu ka soo galo halka uu ku baxo yaa gacanta ku haya sidee loo maamulaa ma la isku xisaabtami karaa iyo processingka uu maro from one point to the another waxa institutionadu ay faa'iideeyaan number 4 dalkani waxa uu baahan yahay hogaamiye dunidan uu dawaafayo iyo international conference-yadan uu ka qayb galayo wax ka soo barta get inspired when you visit another country's palace madaxdeenu safarada dibadda iyo ajendayaasha kala gedisan ay u baxayaan aad bay u farabadan yihiin maanta balse they are not learning they are not observing waxba ugama soo kordhaan it seems adeero miya ficil ku galaynin oo wadananimo jirin at least markaad aragto highwayada iyo institutionada iyo wadamadan qurxaa badan ee tagaysaan ee Europe iyo Asia kadibna aanay kugu soo dhacaynin oo wadadani way qurux badan tahay how they build how much it cost alla ilaahay dalkiiba tan oo kale u baahan kadibna qorshayaasha long term planska iyo short term planska ku darso dib ugu soo noqo dalka adigoo ka duwan sidii aad kaga tagtay hadii kale visitor iyo tourist baan haade ha oran safar shaqan dibadda ugu maqnaa Number 5 dalkani waxa uu baahan yahay a great leader not a great rulers dabeecadaha hogaamiyaasha rulerska waxa kamid ah inay badi ku fogeeyeen xantooda maxaa la iga sheegay yaa iga soo horjeeda bulshada uu maamula ay sumada u kala leedahay runtii waana sababta keentay in 80% madaxdeenu markay xilka hayaan maanta aysan waxba dhaleecaynin ay noqdaan yes man ay noqdaan yani markuu xilka ka dago oo maxaa la yiraahdaa oo buulka noqdana uu miciyo libax la soo baxo labada choice haduu noqon waayo choice-ka saddexaad ee soo haray waxa weeyaan inuu jabhadeeyo ama uu Soomaaliya u galo dabeecadaha hogaamiyaasha rulerska waxa kale oo kamid ah inaysan la shaqeyn karin ilaa qof ay isku fikrad yihiin mooje waxa kale oo kamid ah dabeecadahooda waa nimanka runtii dalka iyo dadkaba ku tartama marka ay doorasho timaado Soomaalida waxay ku maamaadaa meel laba faras ku tartamayaan haddaad aragto cawska lagu tartamayo ayaa ku dhib qaba waxa kale oo kamid ah dabeecadaha hogaamiyaasha rulerska waa nimanka runtii nidaamka jira ee maamul
ku soo booda ee aan bahasha base-ka iyo foundation-ka iyo aan ka soo bilaabinin isagoo aan KPI-giisa la aqoonin small institutions-ka iyo ururada bulshada iyo waxaan ku uri NGO-yada iyo kabtan kubadeed iyo class aan weligii soo noqonin waa nimanka runtii ay siyaasaddu ina barayso xilalka wasiirada iyo wasiirada ku-xigeenada iyo agaasimayaasha ku soo baxaya ee ay siyaasaddu ina barayso waa nimanka runtii aan ku baraarugsanayn maamul xumada baahsan ee dalka ka jirta inay dib u dhac baahsan ama dib u dhac taban ay ku leedahay generationka future-ka soo socda waa nimanka runtii mas'uuliyaadka qaranka u eegmaday iyo waajibaadka u yaqaana daily office routine-ka shaqo maalmeedka office-ka yani inaad file saxiixdo inaad office-ka timaado inaad wafdi la kulanto inaad xisaab xir samayso inaad report gudbiso runtii waa nimanka u yaqaana waajibaadka dalku u eegmaday however leaders are different because their thinking are different haddaba hogaamiyaha dhabta ah ee leaderka la yiraahdo wuu ka duwan yahay sidaas haddaad rabto inaad qiimayso waxaad kaliya toon dib u eegtaa shacbiyadda iyo dadka horjoogaha uu yahay ee uu maamulo hoos u eeg runtii waa shakhsiga markaad 15 minutes ama 10 minutes aad la kulanto dhageysato la fadhiisato waa shakhsiga waxaan ku uri aad minute-ka dabadda uga baxdo aad qiimeyn karto how you feel waxba kaaga kordhay la kulankiisa mise waxba dib hoos kaaga dhacay hogaamiyaasha dhabta ah ee leaderka la yiraahdaa runtii waa nimanka aan aftahanada ahayn ee aan hadalku jeexinin balse they know exactly what they want and they are busy for succeeding number 7 dalkani waxa uu baahan yahay runtii hogaamiye who align his personal goals with the national goals yani baahiyaadka dabiiciga ah ee bulshada Ilaahay ku abuuray ama qofka bini'aadamka Ilaahay uu ku abuuray ee adduunyo jacaylka aan ka hormarinin danta guud ee ummadda iyo dalkaba tusaale ahaan I want to be a rich, famous, powerful, decisive and dignified person. يعني بحياتك الشخصيانيت أن كهر مرينين دنت جود ومضي الدلكبة. Number 7 and دلكني وحوي بهاي يرنتي هو جامية كجوابه oo yani aan ka gorgortamin baahiyaadka dabiiciga ah ee bulshada laf dhabarta ah sida bulshada inay hesho biyo nadiif ah caafimaad wanaagsan waxbarasho tayo leh infrastructure-ka kaabayaasha dhaqaale oo laga hagaajiyo shaqo abuur oo la sameeyo haba iska joogto inay qaraxyo iyo qabar sanacyo aynu samaysano oo dayaxa maanta la gaaray aynu cid u diranay iyo sidii bulshadan gacmaha istu saaratay ee tiri waxba qabsan mayno waxba la soo bixi mayno loo bari lahaa looga saacidi lahaa inay dalkooda aaminaan oo ay dalkooda wax kala soo baxaan waayo waxay noqonayaan maanta bulshadeena reer Somaliland inay noqdeen bulsho consumer not producers bulsho aan waxba soo saarin wuxuun loo keeno wuxuun loo soo dejiyo suuq u noqday wadamada dariska iyo guud ahaan caalamka intiisa badan habbi ku ah nolosha kaamamka iyo kaararka hay'adu bixiyaan iyo donationiska وانا sababta keentay runtii sida aan aaminsanahay in maanta dadkeenu ay shanta waqti ee masaajidada ay ka kacaan oo ay faqriga iyo gaajada iyo saboolnimadu ay nagu sii korodho qodobka ugu dambeeya ee kaga baxaya waxa weeyaan dalkani waxa uu u baahan yahay hogaamiye dalka iyo dadkaba u maqan bal fiirso dadkeena waaweyn ee waayeelka markii ay yaabeen ee maskaxda faraha geliyeen ee waxaan ay arki jirin ay arkeen waxay hadal ku soo ururiyaan sheekhow dalkan iyo dadkan ba Ilaahay baa u maqan Ilaahay baan iska hoos joognaa Ilaahay baa wax walba inoo maqan Ilaahay baan gacmiisa aan hoos joognaa waa kelmad aad iyo aad u wanaagsan runtii balse waxaad ogaataa inuu dalkani leeyahay hogaamiyaal iyo madax iyo mas'uuliyiin iyo ulul amr loo igmaday oo ku dhaartay inay qabanayaan wixii ay ku dhaarteen dadkeena waaweyn waxyaabaha ay arkeen ee aad kula yaabeen waxa kamid ah maanta inagoo ka dhimasho iyo geeri badnaanay qoomiyadaha 90 milyan ah ee wadamada qaar sabab yar oo dhammaantood maamul xumo baahsan ay ka tahay tusaale ahaan xanuunada yar ee ay keenaan nadaafad darrada iyo ciriiriga biyaha nadiifta ah shilalka baabuurta wada xumada iyo speedka waalida ay baabuurta lagu wado dagaalada sokeeye beelaha diriraya iyo aanooyinka qabiil hubka sharci darrada ee maanta guryaha inoo wada yaala burkan iyo tooridan iyo soorkan midhana inaga wada laalaada ee aynu isku wada qatalayno dhalinyarada maanta waxa jirta dhalinyaro runtii below 40 years old ka 40 jir ka wada hooseeya oo xanuunada dhimirku ay hayaan oo dhaqaatiirta dhimirka ku jira oo ay gaajo iyo xanuun iyo wax la'aan ay markaa ay sababta u tahay tira male inta guri ku gubatay daadadkii dixdu ay qaadeen baraagaha iyo ceelasha afka kala haya ku dhacay biraha leyrku ay qabsadeen it seems like we accept death in the place of life by the careless living and the unfortunate leadership aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin daawashada fiidiyowgaygan ama barnaamijkaygan ku xidhnow barnaamijyada qaybtiisa dambe thank you so much for watching